markaan ka hadlayno guddi doorasho ayaan ka hadlaynaa. Guddi doorasho waxaa lagu sameeyey nidaam heshiis qaran oo dhacay 17 Sebtembar 2020 kaasoo ahaa in la sameeyo guddi maamula doorashooyinka oo heer federaal iyo heer maamul goboleeda. Kaasaa markaa waxaa ku astaysnaa shuruudihiisii. Marka guddiyada hadda dhisani waa guddiyo qaran. qofku meeshii kasta uu ka soo shaqeeyay ee uu horey uga soo shaqeeyay iyo way kala duwan yihiin inuu hadda guddiga yahay. Marka hadda guddiga hadda dhisan waxyaabaha waajibaadka ah waxa weeye waa inuu ka fayow yahay, inuusan murashax u iilan. waxaa jira xeer hoosaadyo qabanaya qofku intaa in leeg oo xadguduba oo ku saabsan in uu sameeyey musuq ama in uu sameeyey kala xigsasho ama inuu cid garab siiyo. haddii waxyaabo saas uu ku kaco waxaa jira xeerar qabanaya oo u degsan shuruucda doorashada. tababarka maanta aad xirteen waxaa dabcan ka maqan xubno guddiyo laga rabay inay ka yimaadaan dowlad goboleedyada sida Jubbaland iyo Puntland. maxaa laga yeelayaa? bilowgii hadalkaygaan idiin sheegay Jubbaland iyo Puntland waa maamul goboleedyo ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya, wayna imaan doonaan arrimahooda gaarka ah ee annaga naga koreeya marka la xalliyo. tababaradoodana waa la siin doonaa guddiyada markay yimaadaan. gudoomiye haddii musharaxiinta ay ku taagnaadaan idinka ka bedel lagu sameeyo ay dhacdana wax ka bedelkaas soo suurtagal ma ahayn doorashadii dib ay u sii dhacdo oo ay sii sameeyaan. horta mar walba doorashada waqtigeedii baa lagu qabanayaa sida heshiiska qaran uu ahaa. annaguna waxaan ahay guddi u taagan wixii lagu heshiiyey inaan fulino. annagu sideennaba ka guddi ahaan waxaan nahay guddi farsamo. cid xildhibaan kama dhigi karo, cidna xildhibaannimo kama qaadi karo. waxaan fulinaynaa waa nidaam sharci oo ah hannaan doorasho lagu gelayo oo ah in dadkan Soomaaliyeed iyagu ay ku soo xushaan xubnahoodii baarlamaanka, xubnahoodii aqalka sare waqtigii loogu talagalay iyo habkii loogu talagalay. annaga waxaan ka shaqaynaynaa waa ka marka aasaaskeenuna waa intaas. waan gartay kalsooni intee leeg ayaa lagu qabi karaa guddiga maanta? guddiga kalsoonidiisu waa sharci. sharciyadaasaana muhiima in la dhowro. hannaanka dawliga ah qofka markaa dawladda maamulaya isagu waa maamulihii, laakiin dawligu waa wax mar walba taagan. waxa marka lagu shaqaynayaana waa kaa. waad salaamantihiin. gudoomiye intaadan ka bixin waxaad sheegtay guddiga doorashada in waqtigooda ay dhacayso. waxaa laydinku eedeeyaa in dowladda guddiga meesha hadda jooga in dowladda ay inta badan ay soo magacaabay, inta badan ay ka tirsanaayeen dowladda. marka sidee go'aan ku qaadan kartiin inaad dowladda waxay idiin sheegaan aad qaadatiin maan sidee go'aan ku qaadan kartiin waa caddayn? jawaabtaa mar horena waan ka jawaabaan u malaynaya. guddigan hadda waa guddi madax bannaan. cid kasta oo soo magacowday iyo meel kasta ay ka yimaadeen si un bay ku yimaadeen. waana dad Soomaaliya. waxaan malayaa shaki inuusan kaga jirin inay Soomaali yihiin. in la soo baadho way fiican tahay, inay hufnaan leeyihiin, inay dad musuq yihiin, inay khiyaamo sameeyaan. waxaasi waa wax ummadda Soomaaliyeed ka gadmi kara yani in loo sheego. laakiin haddii intaa ay ka fayow yihiin wax lagu dhaliili karaa ma jirto. hannaankii sharci ee nidaamka doorashada ee loogu heshiiyeyna guddigani waa hannaanka uu ku dhismay, waana taa midda sharciyadiisa ah ee uu ku shaqaynaya.